xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka cid mudane maxamuud cali saleebaan ramax ayaa galikii dambe khamiista 26 Diseembar xabsiga loo taxaabay kadib markii waaran qabasho ay u jartay laanta baadhista dambiyada ee Soomaaliland. Mudane Ramax oo xadhigiisa ka hor qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in waaran qabasho loo soo jaray sida awgeedna uu tagayo xarunta dambi baadhista waxa aanu xadhigiisa la xidhiidhiyay dhaliilaha uu sheegay in uu muddooyinkii u dambeeyay u jeediyay xukuumadda waxana uu xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay in ay dhabaa haysato qaab la mid ah taga cadeeyay madaxweynuhu inuu waarakaasi jiro maaha anigana de way soo sheegeen hadduu xafiisku kuugu yeelo si sharciyana deena timaada waa waajib mala qaar hore arkeenoo ka yara baqa marka waaran iyo wax la soo qaadee dalku sharci buu leeyahay ninna looga tagi maayo xukuumadda taagani xukuumaddii inay ilaybay waagtahay haddii intaan la jaraayo xaqiiqadaanu sheegaynaa. Mudane Ramax waxa uu sidoo kalena hadalkiisani ku sheegay in hore uu nin ay walaalayihiin madaxweynaha Soomaaliland oo aanu magaciisa sheegin uu dil ugu hanjabay isaga oo ku sugan madaxtooyada Soomaaliland. abad baan kugu dhufanay laakiin waxba lama soo bixin hore uma sheegin waxaan u rag baana markhaatiyaal ka ahaa waxaan u qarinayay deena yaroo walaalkii soo diray ayuun baan u arkay sidii caadada u ahaan jirtay waxa dhacday halkaas suuqa gargaar mafrishkayga halkaan ku leenahay in lay dhigay qori iyo inaan askariya oo meeshu ka tirsanayeen la yaqaano runtii rag badan baa ogaa odayaal badan baa ka howlgalay faafinin baa leeyahay way jirtaa agajugleyn iyo hanjabaad fara badan iyo maxaad ku leedahay dawladdeeda inama yaryar oo imika la soo baxay oo dabtaran waa kuwan maalintii hore sheegay aan naaskii hooyadood ayaa qoyan. dhinaca kalena xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka cid Yuusuf Kayse Cabdillaahi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanay ilaa hadda garanaynin sababta rasmiga ah ee xadhigiisa balse uu u eg tahay in uu la xidhiidho dhaliilaha uu u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland sidoo hadalka u dhigay. xogayaha warfaafinta xisbiga cid waxa uu sheegay in xadhiga mas'uulkani uu yahay mid siyaasadaysan oo sharci darro ah iyo in uu muruga u yahay xaaladda ay Soomaaliland marayso iyo in xadhiga handadaada iyo cagajugleyntu lagu hayo mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland isagoo oo ku tilmaamay markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland ee la xidho mas'uul ka mid ah hoggaanka xisbiga soo eedeeyay oo ka jawaabay mooyaan annagu wax kale oo ninka loo haysto waxaan aaminsanahay in lagu haysto maxaad u hadlaysaa maxaad u cambaaraynaysaa xukuumadda maxaad waxa uga hadlaysaa ayaan aaminsanahay in lagu haysto waxa aanu intaasi ku daray in Soomaaliland waxa kale haga uu sharciga yahay haddii sharcigaasi laga gudbana ay sababi doonto in siyaasiyiinta isdifaacaan iyo in mid kasta uu beeshiisa ilaalo gaar ah ka samaysto waxa aanu bulshada Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga u cid ugu baaqay in ay ka dhiidhiyaan xadhiga siyaasi Ramax sidoo hadalka u dhigay. deegaanka uu ka soo jeedo waxaan leeyahay waa in laga dhiidhiyaa waa in la tusaa xadhigaasi inuu xadhig xaaraan yahay xarig sharci darraa yahay waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga inay xarigaa dareenkooda ka muujiyaan. Yaasiin Cabdullaahi Yasrashka codka bariga magaalada Hargeysa. si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.